الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي شن يلواتنات إيه كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. همة الرسول المختار. هل كان وحلو الشيء يا حكمة لوغا عوان لوغا دقاي رسولك صلى الله عليه وسلم هميجيسي أما هنكيسي سري qofka muslimka waxaa la rabaa inuu han sare leeyahay, meel fog inaad ka fikirto ama wax weyn aad tiigsanayso. wuxuu yidhi ibnu qayim, wandur ilaa himmati rasuulillahi sala alla alay slam, bal waxaad fiirisaa rasuulullaahi sala allahu alay wasalam hankii uu lahaa iyo damiciisu meeshuu joogay xiina curidat calayhi mafaatiixu kunuusi al ardi, markii loo bandhigay rasuulka sala allahu alay wasalam ardada iyo dhulka kansiga iyo khayraadka iyo waxa ku jiro oo dhan furayaasheedii, oo uu diiday rasuulku sal lla alay wasalam. waxay diiday marka hankaa sare ama himada sare ee rasuulka ku jirtaa baa waxay diiday inuu ku tacalluqo qalbigiisa wax aan allah iyo waxa jeclaysiinaya ahayn, rabbi iyo wuxuu jecel yahay waxaan ahayni inuu qalbigiisa uu jeclaysto ama uu ku tacalluqo ayuu diiday sala allahu caleyh wasalam. waa la ogyahay, iyadoo la ogyahay rasuulka sal lla ly slam haddii xitaa la siin lahaa adduunka waxa jooga oo dhan mafaatiixdeed iyo furayaasheedii gacanta loo geliyey, daacada iyo khayrka unbuu ku bixin lahaa. maxaa jira rasuulku sala allahu alay wasalam xitaa marka wax la siiyo gurigiisa waxba ma dhigan jirin, dhammaan waa la bixin jiray. sidaasayna aswaajtiisii iyo xaasaskiisiina ku tarbiyoobeen. oo caaisha radiallahu canha waxaad arkaysaa intay boqolaal dirham iyo kumanyaal maalin qaybisay, afurkii wax lagu afuro la waayey ayaad arkaysaa. rasuulka sala allahu calay wasalam oo intii neefkii la qali la wada bixiyey hal xubin ay ka hadhay, uu leeyahay caaisho maxaa inoo yaala, oo ay tidhi wixii oo dhan waan bixinay ilaa hal garab baa inoo yaala. yaa wuxuu yidhi neefkii oo dhan wuu inoo joogaa ilaa garabkaa moogi. maxaa laga wadaa? yacni garabkaas waan cunaynaa, laakiin neefka intiisa kale wuu inoo yaalaa, aakharaad meel inoo dhigtay weeyaan. ayib, marka sidaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam himigiisa u sarreeyaa. ama in loo bandhigay mafaatiixda, xadiis saxiixa rasuulku bukhaari iyo muslim iyo keyrkiiba ayaa wuxuu leeyahay, fa baynamaa ana naa'imun, anigoo hurda ayaa waxaa utiitu bimafaatiixi khazaa'in alardi, dhulka khazaa'inta ku kaydsan furayaashoodii baa lay siiyey, gacanta ayaan saaray. marka waxaana riwaayooyin kale iyaguna leeyihiin inuu rasuulku sal ly slam uusan aqbalin oo uu diiday ayuu sheegayaa. maalintii xitaa khandaqa la qodayay iyo godka, markuu rasuulku sal ly slam intay ka hor yimaadeen, qisaska siiradu soo guurinaysay, intay ka hor yimaadeen sakhra, yani dhagax weyn oo la jebin waayey, intuu u yimid rasuulku sala allahu alay wasalam ka qaaday micwalku waxaa weeyaan baashii lagu dhufanayey, dhul lagu garaacayay, lagu jebinayey, ayaa wuxuu yidhi intuu allahu akbar buu markaasa wuxuu sheegayay 3 jeer inuu ku dhuftay, oo mar walba uu leeyahay waxaan u jeedaa kunuustii sham iyo kunuustii qaysar iyo tii faris baan u kala jeedaa, iyo rasuulku sal alla alay slam hadaladiisa. ayib, alcabd lmusaafir. cabdulmusaafir tanna waa macluumo kale oo uu yidhi, fa ina alcabda addoonku wuxuu ku jiraa sidiisaba safar, safarkaasina wuxuu ku dhammaan imaa ila aljannati wa imaa ila annaar. ilaahay subxaanahu watacaala inaga badbaadiya naarta. wuxuu ku sheegay kitaabkiisa alfawaa'id ee addoonku safarkan dheer uu ku jiro, oo ka bilowday abuurkiisii, soo maray dhalashadiisii, dhalinyaronimadiisii, xilligan ilaa uu marka dambe ka geeriyoodo, geerida qabriga uu galay, iyadana qiyaamo loo sii gudbay, siraad iyo miisaan lasii maray,
ugu dambeynta wuxuu ku intihoon ima ila aljanna. nasal allah subxaanahu watacaala an yajcalana min ahliha, ilaahay baan weydiisanayn inuu jannada dadkeeda inaga dhigo. wa ima ila naar ama naar, nacuudu billaahi, ilaahay baa waxaan ka magan gelaynaa naarta iyo ciqaabkiisana waan ka magan gelaynaa. ayib, marka taasina waxay ahayd waxyaabaha sheekhu wuxuu ku sheegay macluumadaas kitaabka aan soo sheegnay alfawaa'id ayuu ku sheegay. marka safarkaa dheer waa kii rasuulku lah sal alla alay slam, maa li walidunya, markuu adduunka ka hadlay, aniga iyo adduunyo maxaana kala galay, inamaa mathali wa mathalu dunya karaakib, aniga iyo adduunyada waxaad moodaa oo qof gaadiid saaran oo safarahoo qaala taxta shajara, geed hooste wax yar qayluushaday. qaaladaasi ma aha tii hadalkayda, waa qayluushi. xogaa yar buu dhinaca dhulka dhigay, naab buu qaataa la yidhaahdaa, uma taraka oo raaxadna ka dhaqaajiyey. adduun waaba sidaasaan ku joogaa buuri. marka meel laysku dhajiyo iyo meel maaragtay ma aha midna. ilaahay subxaanahu watacaala safarkeenna ha ka dhigo mid ku dhammaada jannadiisa. ilaahay subxaanahu wataala jazakum allahu khayr, baarak allah fiik.